بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kusoo dhawaada dersi ka mida duruusteenii taxanaha ahayd ee ku saabsanayd higaada qur-aanka kariimka ah ama barashada higaada qur-aanka kariimka ah oo lagu baranayo akhriska qur-aanka kadib markii aynu kasoo baxnay casharadii higaada ahaa amaba xaraf kasta aynu goonihu sharaxnay jizca maynu dhammaynay jiz dabaarigna aynu kusoo jirnay ilaa suuratulqiyaama qeybta koowaad aynu soo qaadanay maanta insha allahu tacaala waxaynu ka amba qaadi doonaa qeybta labaad ee suuratulqiyaama qeybta labaad waxaa ku bilaabantay amaba safxadda dhinaceeda kale kaaf iyo laam iyo alif laamka waxaa saaran shad iyo fatxa markaa waa inaad shadkii muujisaa kallaa oo laamkana alifaa ku xigtay inaad alif akhriyayso kallaa ba'dan iyo laamkan labadaba waxa saaran midna fatxa midna sukuun bal kallaa bal tu ta iyo xa isdul saaran weeyaan ta'da waxa saaran dama xa'dana hoos dhow tuxibuuna ba'dana shad baa saaran shadka muuji oo waawga madkiisina si madu bil waaw tuxibuuna alcaajilah ta'daasi marka lagu istaagayo luqa alcarabiya ama carabtu markay istaagayso waxay u bedeshaa ha oo ha baa laga dhigaa uu saaran yahay sukuun aynu kusoo barannay dariistii madadka marka waxaad ka dhigtaa ta'daasi ha kallaa bal tuxibuuna alcaajilah watadaruuna alaakhirah halka haddaad u fiirsato waxay sul dhinac yaalla hamze uu fadax saaran yahay iyo alif dhinac saaran dadka qaar waxay moodaan inay tahay hamze quraata oo loo akhriyayo watadaruuna alaakhirah akhira maaha sidaan kugu sharxi doono insha allahu tacaala dhinaca hoose khadka waxaa had iyo jeer fiican inaad u fiirsato markuu hamzaha uu horeeyo oo alifta ku xigto waxa weeyaan sidii shaqalkii dheeradan soo baranay u oo kale laakiin haddii ay hamzaha iyo aliftu isdul saaran yihiin oo hamzihii ay aliftii ay sida halkan oo kale ay dul saaran tahay hamze waxa loo akhriyaya waa hamze quraato oo lama dheereynayo shaqal dheer lagama dhigayo oo iminka halkan weeyaan halkanna waa weeyaan oo u fiirsa sidaas watadaruuna dhe marka xarakatin jid watadaruuna alaakhirah wujuuhun yawmaidin halkan haada uu saaran yahay tanwiintan dambaska laga dhigay iyaabaa ka dambaysa oo xuruuf manxara waxaa ka mid tahay xaraf ka mid a xuruuftii idqaamka ee lixda ahaa markaa isdhex qari isku dhex geli oo isku dhex dahaadh waxaad tirahdaa wujuuhun yow oo markaad haada akhriyayso meeshii yaada sii tag qunana samee wujuuhun yawmaidin daalkan tanwiinta saarantay nuunka ku qabo markaba waa idqaamkii qunaha lahaa yawmaidin naadirah di dood kasra di ra'danna habaa ayaa laga dhigaya ta'da ugu dambaysa marka la akhriyayo naadirah ilaa rabbihaa naadirah waawow wa iyo waa laba waaw ka hore waxa saaran fatxa ka dambana dama saaran u fiirso wu waaw fatxa wi waaw fatxa waaw kasra wi waaw dama wu waan soo baranay wi wu marka u fiirso halkaasi iyo kaa noqonay wax kale si kale loo akrin waa wujuu jiimka markaa waxa saaran iminka dama waxaana ku xiga waaw wuxuuna noqonayaa madu bil waaw waa wujuuhun yawmaidin halkaasay la mid tahay oo tanwiintii iyo idqaamkii iska daba dhacay waa wujuuhun yawmaidin baasirah ba'da waxaa ka horeeya tanwiin daalka saaran laba hoos dhow ah hase yeeshee marka tanwiinta iyo ba'da iska daba dhacaan waxa la yidhahdaa iqlaab ama alqalb waxaa loo gediyaa ama laga dhigaa tanwiintii yarayd tanwiintii waxaa loo bedelaa miim yar oo halkaas waxaad shardi ka dhigtaa in markaad ba'da akhriyayso maadaama ba'da iyo miimka ay isku makhraj yihiin ama meel kasoo wada baxaan inaad tiraahdo waa wujuuhun yawmaidin oo marka daalkii aad hoos dhowdo markaba ku bood meeshii miimka sii tago dabnahaga isku qabo waa wujuuhun yawmaidin baasirah tadunnu an yufcala yaadan waxa ka horeeya nuun reeban marka waa xuruuf lidqaam isdhex
isdhexgeli iyagana oo qulna samee تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت الترى تأذن هوس دبنو كذا أخرده waxaad ku akhridaa ta'da kale shad ku saaran yahay oo hamsatul wasligan iyo aliftanba ka bood maadaama ay tahay ashani ashamsiya ta'dan hoos dhow ta kalena adkee oo fadxeysii kallaa idaa mad weeyaan madxuruud xukumada madka ama play listka meesha ku yaalo madadka tag casharka madadka soo baro dad doonaysa inaad madadka barato afar baa la jidiyay halkaa idaa balagati taraaqi qofka waxa saaran hoos dhow ya-da ugu dambeysana waxa saaran fadxa laakiin fataxaha lama akhriyayo marka lagu istaagayo waxa la siinayaa sukuun markaana wuxuu noqonayaa uun madkii ya-da ahayd ee xarakateynka ahayd in lagu istaago oo la yidhaahdo kallaa idaa balagati taraaqi waqiila man weeyaan halkan u fiirsa halkan yar ma ku sharxi doonaa insha allahu tacaala waqiila man oo nuunkan reeban had iyo jeer markaad masxafka akhriyayso nuunka reeban iminka sida halkaa ku taala oo kale lama muujiyo xarakadiisa lama muujiyo laakiin halkan waa la muujiyey in nuunkii yahay mid reeban oo reebitaan baa la saaray halkaas siinka dul saaran waxaa la yidhahdaa sakta amaba aamusnaan yar qur-aanka xafsaha aynu qiraa'adana dhiganana waxaa kusoo aroortay 4 meelood meel ka mid weeyaan halkan insha allahu tacaala waqiila man raaqo iyo waqiila man raaqo labadaba waa loo akhriyi karaa laakiin waxay ku xidhan tahay sida sheekaaga aad uga dhiganayso insha allahu tacaala mar waxaad odhan kartaa laakiin waxay ku xidhan tahay medka munfasilka ah sidaad u akhriday waqiila man raaqo ama waqiila man raaqo oo codkii intaad nuunka akhrido ayaanad naqas soo saaraynin aad isku haynaysaa naqaska isku dhejinaysaa laakiin waad isku haynaysaa si aanad u neefsanin dabeetana ra' baad akhriyaysaa iyo alif iyo qaaf waqiila man raaqo ama sidaad u akhrisa halka haddaad xarakateyn ka dhigto iminka aad culimada qaar markaad dhegeysato cajaladaha oo kale halka haddii laba ka dhigaan halkana waxay siiyaan way ka tagaan sagtadii oo way isku itqaamaan miimka iyo ra'da وظن أنه أي هيد هو لكن هذا اللام كقوله أنه الفراق والتفتي واو يا لام والتفت الساق هكذا تأذى سي واحد كله فتا سين كاسي ما دام هكذا هي اللام الشمسية والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ هكذا ينبغي من سوشر حني إن شاء الله يمكن أن نكون شرح دونا سورة بلو جديد نوجو شري مكة تنوين تلاهوس دبيه وكتب دعو حرف سكون ساني هي زي الله شرحيه إلى ربك يومئذ ذال هوس دبن ينون هوس دبن بدأخريسها بس ذال هوس دبن ينون هوس دبن تنوين تسكبوت يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ثاني كلا سوقات إن شاء الله تعالى نير وينيو وحنا ولكن بها لكن نمكن كافة كتب دعي ولا إدغامية وإخفى لك عفوا وحنا ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله وهالكاسون صادق إن يأتي أهله كنا نصادق إن متك إن نكون نقولنا معها يتمطى طاء شد غنيه هذه نسي استعلاء هذه نسي عفوا ووينه وإن كلمة حرف علوس إنه يهوي في عن يتمطى أولى لك فأولى أوتر هذا أولى ثم ذهب إلى أهله هكذا السواح محي ويا يتمطى أولى لك فأولى وهكذا المكادات أخذوا مكو أو أن صبرني أي لكن
halkaasi laba xarifta iyo hamsihaasi iyo alifta hamsahaas waa kuwaas fa un baa laga horeysiiyey fa aw iyo bilowgeediina aw weeyaan aw iyo fa aw marka u fiirso fa awlaa laka awlaa laka fa awlaa thumma awlaa laka fa awlaa ayaxsabu ba'da laamka ku qabo ayaxsabu linsaanu an yutraka sudaa alam yaku nutfatan ayahayd nutfatan tanwiintaasi saaran iminka miim baa ka dambeeya xuruuf lidqaam ka mid ah yarmuluuna qaybta weliba ay tahay in la idqaamo kaa isku qabanaysaa tanwiintaas waad ku qabataa miimka oo isdhexgeli alam yaku nutfatan min ayuu ahaa mintaasi imka nuunka lama akhriyayo sida dambaska looga dhigay miimkan iyo miimkan baa la isku akhriyaya miim qura laga soo qaadaya mim laba miim oo isku xigo midna uu hoos dhow saaran yahay midna uu fadxa saaran yahay un akhriyo shadna si mimma haba akhriyin nuunkaba mani nuunkana kasraa saarane mani markaad shadka dhammayso nuunka hoos dhabanna ni dheh ya-dana waxa saaran laba hoos dhow waana la shadaya maniyin buu ahaa maniyin laakiin ya-dii waxa saaran tanwiin waxaana ka dambeeya ya waa idqaam halkana marka saas awgeed baa loo akhriyay oo la yidhi min maniyin yumna alam yaku nutfatan min maniyin yumna thumma kaana calaqatan tanwiintii waxaa ka dambe dhacay fa waa ikhfa calaqatan fakhalaqa fasawaa fakhalaqa laamkaasi iska ilaaliyo ka noqonin fakhalaqa oo ka weynaani maxaa yeelay khada iyo qaafka ayaa waaweyn oo dhinacyada ka yaala oo jiidanaya fa'dana yaree fakhalaqa fasawaa waawganashad fajacala fa jiim cayn laam fajacala fatxa fajacala minhu marka hada ku dhufay marka zayda fajacala minhu الزوجين haddii gooni loo akhriyayo lakin hadaasi zaaidaa ku akhri waxaad tirahdaa fajacala minhu الزوجين nuunkana daalka ku akhri nidhakara fajacala minhu الزوجين الذكر والأنثى nuunka halkaasi greenka saaran yahay waxaa saaran tan sukuun maadaama ithaa ka dambeysana waxaa la yidhahdaa xarfu min xuruufi alikhfaa waa laba shay oo la isdhexgeliyo laisku dahaaray walunthaa alaysa dhalika biqaadirin marka tanwiintii mujacayn baa ka dambeeyay idhaar weeyaan biqaadirin calaa an buu ahaa laakiin yaa baa ka dambeysa an yuxyi halkaasi waa ya halkaasina waa hoos dhow yuxyi ya-da kalena waxaa saaran fatxa waxaa tiraa laba ya oo iska daba dhacayoo ta horena ay kasra saaran yahay ama hoos dhow ta labaadna uu fatxa saaran yahay yuxyi ya weeyaan yi ya kasra hoos dhow yi fatxa ya iska ilaali yuxyi ya marka ya-dan akhrido laamka ku akhri sheekhow waxaa tirahdaa an yuxyiyal miim weeyaan halkaas iska ilaali waa miimkana maxaa saaran fatxa iyo waxa ku xiga waaw sukuun saaran maw ta'dana waxa saaran alif fatxa iyo alif marka waxaa tiraa taa almawta calaa an yuxyiya almawta allah waan ka baryaya insha allahu tacaala ila ilaahay qur-aanka inagu anfaco dhammaantiinba inaguna naxariisto yowm alqiyaama asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu